وقبيتي والذين أروين إرمانو أطوي جريسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إلى هنتين بواحد اللينا هاي همبليو وهالتا نيرو سعطان ومسكين اوفيشيال أو إذن له سوماليوين ميرو بأدونك أكنوشيهين همبليو 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 لحظة أكنوشيهين. haddana waxaan la jooga walaalkii qaaliya youtuberkeena weyn maxamed olibreed kusoo walaalkii qaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waxaan leenahay hambalyo 26 Juun oo ah maalintii ay xornimada qaadatay.
waxaad leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo 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 waa walaalkii miskiinkii ilaahay miskiinkii addoonkii alle oo idin leh oo ayuu jacaylow qof kale ma ahan waa miskiinkiini waa walaalkiini qof kale ma ahan oo wax waxa idin hambalyeenayo waxaad leenahay hambalyo 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 meel walba ee Soomaaliya ay wada joogto inkastoo coronavirus inta la xiray oo si fiican u baashaali lahayn oo baawur iyo adduunyo soo kiraysan lahayn waxay nagu taliftay in aan qol dhexdiisa dhex duubno taasna taraale ahaado walaalahay qaaliya haddii oo aan coronavirus u jiri lahayn waa dareemi lahaydeen oo baashaalina baawur wada xardhan oo wada qurux badan oo calanka saas u wada babanaya ilaa ay safaaradan diin lahayn laakiinse coronavirus jiro bando ayana saaran waxa waajib noo ah in aan anadii taamirada qolka bas aan ku jirno oo aan soo fiirino marka walaalayaal waxaan leenahay hambalyo hambalyo anadii iyo asxaabteeda isku duuban waxaan leenahay qalbi ayaan ka jeclaa mar walba iyo mar kasto si inta aad noola jirtaan oo aad noo daawanaysaan waa intee mahad celinaa please subscribe like share comment hana hilmaamina Soomaaliya ha noolaataa Soomaaliya ha israacdo mar walba iyo mar kasta waxa u duceynaa in Soomaaliya mid noqoto ilaahay waxa ka bariyaa in Soomaaliya qalbiyadooda isku soo mideeyo waxa leeyahay Soomaali baa leh cadowga Allah na yahayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay meel kasta ay ku noolyihiin hal iscafiyo on kaliya in la iscafiyo oo calankaas ayaan wada dhaxay calankaas in la wada mideeyo shalay shan isku duubanaayeen laakiin maanta waxaan nahay shanta la farsan waxaan ilaahay ka baryayaa in shalay sidaa ahayd uu ilaahay nagu soo celiyo shan wada midowday midnimo qaran ah wada noqon walaalayaal aad iyo aad u maasantiin waa miskiinka ilaahay oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh